kulan soconayay muddo hal maalin oo lagaga arisanayay xeerka qabyo qoraalka caanaha oo ay si wada jir ah u wadaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda Jarmalka ah ee VSF Germany ayaa maanta ka furmay hotel Galisa ee magaalada Burco. kulankan oo si toos ah u hageysay wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa waxa uu nuxurkiisu ahaa in loo gudbiyo bulshada xeerkani kaasoo ka qayb qaadanayaan in ka badan 40 xubnood oo kamid ah caanaleyda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhakhaatiirta xoolaha. kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle oo saaka kulankani furay ayaa waxa uu xusay in mowduucani muhiim u yahay bulshada Togdheer waxaana uu xusay in ahmiyadda ka dambaysa xeerkani tahay in kor loo qaado tayada caanaha ee xoolaheena iyo dawladeenu ay gaadho wax nadiir ku ama daliil ku ah waa ka buugi xeerka caanaha intiina waxa wax lagu naaloodo oo lagu farxo horumarka dalkeena ka muuqda waanaheeni neefku inta andhadiisa ku jiraan haruubu la geli jiray oo la nidaaminayo maanta. sidoo kalena isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdi Hindi ayaa isaguna waxa uu xusay in kulankan uu u tahay dadka ehelka oo ah xoolaha iyo caanaha waxaana laga hadlayay faydhowrka iyo ilaalinta xeerka dairy regulatory draft oo aan weli xeerkani u gudbin baarlamaankii loona geyn doono insha Allah sida ugu dhaqso badan iyadoo ay kulankaasi ka qayb qaadanayeen mas'uuliyiin ka tirsan xanaanada xoolaha ay kamid ahaayeen agaasimayaal ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland. xeerkan faydhowrka caanaha ayaa waxa uu xilligani ku guda jiraa habkii bulshadu uga dhiiban lahayd fikirkooda si loo horgeeyo golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi, Horseed News, Burco.